Khabiirada isboortiska ee kubadda cagta ee BBC-da ayaa rumaysan in ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee Arsenal Nketiah uu sii joogi doono kooxda Arsenal. Waxay ku micneynayaan in Arsenal haddii ay u soo baxdo Champions League in Nketiah uu heli doono fursado uu ku ciyaaro kulamo badan. Sidoo kale waxay leeyihiin Nketiah haddii uu ka tago kooxda kubadda cagta ee Arsenal wuxuu aadi doonaa kooxo lamid ah Crystal Palace, Southampton ama Brighton. Naadi Champions League ka ciyaaraya oo qaadanaya ma jirto. Waxay leeyihiin wuxuu haystaa fursad uu Champions League ku ciyaaro maadaama xiddig kasta oo kubadda cagta ay soo baxaya uu jecel yahay inuu ka ciyaaro horyaalka qaaradda Yurub ugu qaalisan ee Champions League. Ciyaaryahanka hore kooxda kubadda cagta Arsenal Ian Wright ayaa ku micneynaya in Nketiah uu joogo position ama meel uu ku gorgortamo kooxda kubadda cagta Arsenal in la ciyaarsiin doono kulamo badan. Sidoo kalena uu u saxiixi karo heshiiska kooxda kubadda cagta Arsenal. Nketiah heshiiskiisa wuxuu dhacayaa bisha 6aad ee ka harsan tahay isbuucyo kaliya. Markaas ka bacdina wuxuu si xor ugu biiri karaa kooxda doono. Laakiin ciyaaryahanka hore kooxda Arsenal Ian Wright ayaa wuxuu qabaa in Nketiah uu joogo naadi fiican oo fursad fiican uu heli doono maadaama ay Arsenal ka tageen laba ciyaartooy oo aad u muhiim ah mid uu ka tagay kaasna wuxuu ahaa Aubameyang iyo hadda oo Lacazette oo isagana uu baxayo. Arsenal ayaa la filayaa inay la soo seexato ciyaaryahanka la yiraahdo Gabriel Jesus ee weerarka ciyaar kooxda Man City. Man City ayaa la soo seexatay Haaland. Saas tahay Gabriel Jesus wuxuu raadinayaa naadi oo boos joogta oo ka helo oo ka ciyaaro. Saas darteed waxaa laga yaabaa Gabriel Jesus oo heshiiskiisa hal sano ka harsan yahay inuu asagana Arsenal u soo wareego. Marka Nketiah hal ciyaaryahan for example ninka la yiraahdo Jesus oo kale ma ciyaari karo kulamo kasta. Wuxuu u baahan yahay Arsenal wuxuu u baahan tahay laba striker. Marka Nketiah wuxuu noqon karaa bay leeyihiin striker backup ah oo kooxda kubadda cagta Arsenal ay u baahan karto maadaama kulamo badan ay ciyaari doonto maadaama ay u soo bixayso horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. Sabtida ama Axad inta la ciyaaro haddana Talaadada iyo Arbacada in la ciyaaro oo aad ay u dhib badan tahay adoo hal ciyaaryahan striker haysta. Nketiah fursad uu heli doono ku ciyaaro wuxuu haystaa waxay leeyihiin Janis oo kooxda Arsenal ku sii joogo soo u sii ciyaaro ama kulamo oo u helo u ciyaaro. Way cabashadiisa inta badan Nketiah waxay ahaa jirtay inuusan helin fursado uu ku ciyaaro. Nketiah ayaa sheegay haddii uu helo run of 3 games ama 3 ciyaar isku xigta inuu kooxda kubadda cagta Arsenal goolal u dhali karayo. Balse haddii si bedel loo keeno ciyaarto waxay ka dhiman tahay ama in 10 ciyaarto hal ciyaar la ciyaarsiiyo waxay ku dhib noqonaysaa formkiisa ama qaab ciyaareedkiisa. Balse ciyaarihii u dambeeyay 4 kulan ayuu fursado helay inuu si toos ah kooxda kubadda cagta Arsenal u ciyaaro maadaama Lacazette oo dhaawac ku maqnaa. Haddana Boski isaga ayaa qabsaday Lacazette kursigeedka ayuu ku jiraa markasta. Waxay kula tahay in Nketiah uu sii joogo Arsenal oo noqdo strikerka labaad ee Joyce Arsenal markii ay kulamo badan ciyaarayso si ciyaaryahanka number 1 ka ah strikerka kooxda Arsenal u noqonaya oo bedel ugu noqdo.